waxaa kaloo soo raaca macallimiinta dugsiga waabana lagu dhagan yahay unug macallimiinta waa u kala kacsan dee kala kac jira macallimiinta xaafadan soo wareega macallin guri asaga uu leeyahay degan haddii la helo hal iyo laba waa kiray wada degan yihiin haye dukaamanka taga intaasoo buuga ugu qoran jidka waa ka leexleexdaan qaarkood macallimiinta agsarkooda qadiiman wa xadiisan gaas iyo tiibisho iyo dhiig karay u dhintaan ilmihiinaanu ku ridi cunug waxaa lagu keenaa alla cirka ka soo ridi waxay ku leedahaybo macallinoo 4 cunug waaye 3 dugsi macallin hebelooba ii dhigtaan macnaha waaba ii dhammayrabaan qur-aanka kanaan kari waay kan meel kasta waa geey ku dhahay xali anoo gaal shira geey rabo ay heblaaya waxay dhahday macallin hebeloom uga soo asaa toosi hay nin adika soo noogta maal toosi karaa mar shaatiga siibaa dhehe korkiisa meel laga tumal asi dhan wada dhaawaca ku yaal habarta waa ka soo noogtay odaga waa ka soo noogi ala leeyahay haddana macallimiinta maxay u baahan yihiin macallimiinta wax ka baahi badan ma lahan xaqiiqadii wax ka baahi badan ma laha oo maanta cid wax siisa ma lahan idinkaasay idin sugayaan idinkana waxa waaye koo horta macallinka waxaa laga horumarinayaa kirada guriga korontada guriga dikootarka naagtii oo kabarka joogtay taas ilaan baangaday wadataa waxeeda ma la haysan karo macallinka waxaa u taalo macallinka waxaa dhehaysaa bish dambaa lasku soo daraya aabbahay saasoo ku soo dhaa bish dambaa lasku daraa hadda iidaa joogtaaye dhar iidaa laga rabaa wax walbaa laga rabaa bish dambaa isku soo daraa dha intas keena isku soo daraa lagu leeyahay bax macaan isku soo daraa kan korontada waa lasku daraa ma yeelay biinsas wataa kan biyaha kiyaabas wataa naagtii kale baangaday wadataa intay kaa qabeen dadkay kugu ceebeynay waxayga intay idhig macallinka waa iska sabraa cunugaa qur-aanka dhammaynaayo meeshii uu sugaayay macallinka bal haddaa waxay leey cunugiiba waa kaasaayo waaba iska tagaa maqlaysaa adoogana xaggaas kaa maraa macallimiinta waa ku dulman yihiin magaaladan macallimiinta meesha laga qaado qur-aanka ilaahay weligiisana saasaa loo dulminayay canuga markuu iskoolka aadaya waa aragteen boorsaa loo soo gadaa waxaa loo soo gadaa kaba kooyo waa loo shanlaynaa waxaa arkaysaa hadda maamooyin salaad subax markii laga baxo jidkaan ay taagan yihiin basay sugay ay taagan tahay iskoolka waa kule xanaanow dhigtaa lagu leeyahay dugsigana wallaahi cunug waxaa lagu soo diraa kaadi ka soo ureyso oo wejiga aan laga soo dhaqay waraa dharkaa xagga baxsee bax iridi iyo laa bax dugsigaa aad wax oo wata male asaga dhan asagoo fiishkii saarnaa lagu soo diraa haye dugsiyadii marka hore waxay ku aali jireen darbiyada iyo jidcadayaalka waa laga daawiyey sheekhow meeshaan dabaqaa rabaa inaan ka dhistay meesha aada bishaana waqti haystaa la dhahooya kirama iska bixi karo marka haddana kisti yareed oo la siinayo fidrada waxaa la yidhi macallimiinta maalqabeen waaye maalqabeen adi maa ka dhigtay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka diintiisa asagaa wato waa maalqabeeno ilaahay baa ka dhigay laakiin xuquuqda idinku leeyahay iska bixiya waalidiinow macallimiinta gadaala la marsiyaa gadaal kow asaga ha laga bilaabo maadaama macallinka qur-aanka uu yahay haddii canugaaga qur-aanka uu ku dhammeeyane waa anaga waxaan la hajrin waa la socotiina macallinka ha laga farxiyo ducadaad macallinkaaga siiso canugaaga aa ugu qaado cunugaaga mustaqbal uu rabaa ducadaas way anficaysaa laakiin haddaa macallinka aa kala dhuumato iska ilaali marka aad iyo aad aan ugu digtoonaan macallimiinta ayagana insha allahu tacaala dhulkaas ka qaadaan insha allahu tacaala xayahaas ka dhigaan haddii lagu kor socday dhulkaas sii seexina adigana macallimiinta iskoolka waa aragteen iskuulka markii la xiraayo 2 bil waa horumarinay oo dhigooni waa iskool la dhiganooni waa horumarinay haddaadan horumarin imtixaan ma galaysid iskoolkaana ku arkay nin waalid ah ilmihii waa ooynaya imtixaanka waa loo diiday dahabkii xaaskiisoo wadaa wuxuu leeyahay dahabkan qabsada imtixaanka ilmaha liigu ogolaada anaga dahab ma rabna lacagaan rabnaa dahabuu wadaa dahab macallin dugsi dahab loo keenay ma aragtan sii hayso marka aad iyo aad looga digtoonaada haddii arabtiin dhaha macallinka macallin dugsi oo xaqiisoo dhacsanooyaa waa ku khasbanaya inay xaqayga dhacsado laga maarmaan waa laakiin macallimiin badanaan u doodooyaa macallimiinta dib ha loo fiiriyo macallimiintan oo muxuu ahay la baakimayo oo la leeyahay macallinka ha ii dambeeyo ha la iska ilaaliyo xuquuqdooda ha la guto shalay idinkaa soo hay maantane macallimiinta macnaha ha loo dadaalo insha allahu tacaala